Fiidiyoga maanta waxa waaye part 2 oo kii shalay buu la socdaa oo samirka ku saabsanaa iyo waxaan ku soo darayaa qoyska guuleystay ama qoyska ku wada heshiiyey inay noloshooda gacanta isqabsadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Samirka lagu sheegayo tii hore aan aqoonay ma aha. Hooyada guriga inay iska warhayso daalkeedana la soo xadido taasaan shalay ka hadalnay. Part 1 kaasaan kaga hadalnay. Marka maanta part 2 aan sameynaynaa oo ku saabsan dhamaystirka kii shalay. guurka iyo ilmo korinta ilmaha markay yar yihiin waa waqtiga ugu farxadda badan oo wiilka iyo gabadha isqabaan maxaa la dhahaa waqti badan ay isla qaataan waqtiga badan isla qaadanayaan waxa waaye baahi ay jirto oo labada qofood zaad iskugu qabto oo ah maxaa la dhahaa ciyaalkaas inay horumariyaan ciyaalkaas inay wax u qabtaan inay dugsi geeyaan inay iskuul geeyaan inay maxaa la dhahaa noloshooda ay ka fikiraan marka ciyaalka horumarkooda iyo maxaa la dhahaa daruuriyaadkooda maalmeed ba adi iyo odagaaga xiriirkiina zaid uu iskugu dhow yahay sababtoo ah maalin kastaba wax cusub baa familka markay yar yihiin yimaada tii Soomaaliya aan hore u maqlay gabar aanan barkinteeda elin ka buuxinin nin ma dhaqato taas wax soconaya ma ahan waqti hadda lagu jiro wax soconaya ma ahan marka in ma aha qabadha inay stress geliso ee sariirta ay ku oyso ay dhibaatooto ma aha waxaasitood waa lala xalin karaa inay dhibaatooto gabadha ay habeen iyo maalin oyso ma aha meel in la wada fadhiisto baa xal la heli karaa problemka markaas taagan inaa adiga sariirta ku oyso adiga stress maalin kastaba aad isku baabi'isid ma ahan waxa waaye inaa waxa la wada sheergareeyo problemka marka la sheergareeyana wuu yaraanaya ma u baahna inaa adiga ninkaaga oo aad ilaa iyo heerkaas aan lala hadli karinba haddii ilaahay la isku xiro guriga shaydaanka ilaahay wuu ka qabanayaa marka reerkaasitood nolol waxay ku jirayaan farxad ama waxa la haysto ama wax ha yaraado ama ha badnaado farxaday ku wada jirayaan reerkaasitood wax la isku og yahay reerkaas haddii ay ku wada nool yihiin oo maxaa la waxba oo inay u qarsaneen oo dad si daacad isku wada nool yihiin reerkaasitood hore usii soconayaan kalsooni badan ay iska sii helayaan labada dhinacba maxaa la dhahaa ixtiraamkane waxa u tahay muhiim in la is ixtiraamo inaan la is caynin inaan la maxaa la dhahaa oo si xun la iskula hadlin inaanan maxaa la dhahaa oo dad sidii jidka dariiq iskala joogo kale inaan loo wada hadlin oo loo wada hadlo dad nolosha ay kaga tahay inay hal meel u wada jeedaan oo yoomil qiyaama ilaahay naxariistiisa oo janno ku geeyo intii oo maxaa la dhahaa oo safarkan lagu wada jirin si nabad ah oo galgaceel ku jiro inay ku wada joogaan inay tahay maxaa la dhahaa waxa ugu weyn naftooda gabadha iyo wiilka isqaba haddayna xaquuqdooda aynan ahayn wax la isku og yahay oo warcad ah haddiinan ahayn waxa waaye meeshaas waxaa ka imaanayo tartan iyo waxaa ka imaanayo reerkii oo isdafara marka xaquuqda gabadha in la ilaaliyo waaye 100% xaquuqda wiilkana in la ilaaliyo waaye ani ahaan qof shakhsiyan xaquuq gabadha maxay noqon kartaa shaqadii waa la wada haystaa oo gurigii iyo noloshii waa la wada haystaa asigana tiisoo qabsadaa adigana taadaa qabsataa wax la isku og yahay waaye noloshaaneytood waa shirkad waaye oo la wada subsanayo gurigan marka tiisi wuu kasoo baxay oo wixii laga rabay wuu kasoo baxay adina taada waa kasoo baxday laakiin xaquuq kalaa jirto xaquuqda kale oo gabdhaha mar kastaba maxaa la dhahaa kalsoonida ay ugu dhuntaa waxa waaye gabadha inay la haysto waa dhaqaalo inaad dhaqaalo u sameysid haddii aad rabto wiilasha tanna wiilasha dhinacooda waaye haddii aad rabto xaaskaaga inay kalsooni kugu qabto inay fahamto inaa adiga noloshaan aa wada wadataan inay leedahay ay wax ka leedahay xaaskaaga waa inay ka warhayso dhaqaalahaaga inay ka warhayso waa inay dhaqaalahaada ay u leedahay inay isticmaali karto dhaqaalahaada inay u haysato xornimo sida adiga xor ugu tahay oo waxa ugu qabsan karto ayadana inay dhinac wax ugu qaban karto ayadoo reerka ka fikiraysa mustaqbalkooda ay wax ku samaysan karto inay xor u tahay inay dhaqaalaha guriga maxaa la dhahaa reerka siday ugu dhaqaaleynaysa wax raashinka saan u kari maxaa la dhahaa saan wax u suubi cunugaaneetood saan wax u yeel odaga saan wax u yeel siday kaaga fikirayso reerka siday ugu fikirayso dhaqaalahana inaana laga durjinin dhaqaalaha la dhaho kan shaqo kuma lihid adiga naag baa tahay mustaqbal annagaa noo suubinaya xagga fadhiiso reeraha burburkooda badanaa hadda waxa keena waxaa waaye wax ku saabsan dhaqaalaha maadaama wada degan tihiin inaa isfahamtiin oo aad gacanta isqabsataan dhaqaalaha guriga gabadha inaad la xiriirisid ay ka ogaato ay wax ka og tahay
inay guriga wax ka qaban karto maaha inay qaafil ka ahaato oo tii rabadee kuu timaada xataa meel ay wax ka bilowda inaan garanaynin marka oo dadka banaanka u imaanayaan ay dhahayaan ninkaagii wuu dhintay deentaasaa lagu leeyahay amba ninkaagii wuu dhintay lacagtaasaa meesha jirto waa lagu keeni doonaa maalin ma loo baahno haddii deen lagugu leeyahay deenta inay ka war hayso haddii oo maxaa la dhahaa business ay meel kugu jiraan dhaqaale meel ay kugu jiraanne inay ka war hayso wax kastaba ay ka haysato warqadeeda ee caddeynteeda ay ka haysato haddii ayada dhimatane waa ka war haysaa adiga haddaa dhimatane ayada waa ka war haysaa inay labada qofood ay noqdaan shirkad wada shaqayso oo si daacad u wada shaqayso marka intaas ka bacdi waxaan sugnaba waxa waaye subscribe inay saartaan thumb up inay saartaan anigane maxaa la dhahaa khibradda aan leeyahay adduunka aan ka leeyahay iyo wixii aan banaanka kasoo siyaadiyo waa iskii soo daraaya waa idiin soo daynaya idinkan hore isii kaxeeya aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu